Kulankan oo ay isugu yimaadeen ururka haweenka degmada Marka ayaa waxa ay kaga hadleen kaalinta haweenka ee ku aadan dhanka horumarka, amniga iyo dib u dhiska. Kulankan ayaa waxaa soo agaasintay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Marka. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Hoose, Maryan Wiilow. Qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay kulankan ayaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka waxa ay ka codsadeen in wax laga qabto baahiyaha ay wajahayaan haweenka degmada Marka. Alle soo dhawow in badan ayaan ku sugeene aan sadexeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose goormeed la kulmaysiin maanta nasiib u yeelane aad iyo aad aan u faraxsanahay waan ku soo dhaweenaynaa. Marka xigta anaga markii alla dhaho haween qaasatan haweenka gobolka Shabeellaha Hoose degmada Marka tuulada Ceel Jaale cabashooyin waa buuxnaa ugu yaraan hadda nadaafadda markii laga soo qaado qalabka nadaafadda ma haysano siminaaro iyo waxba la keenaa haweenkeena ma la xuso waxaana la leeyahay laf dhabartaa tihiin afki waa wax kama jiraan anaga soo qaadaan dhooti marka maama waxa ka codsaneena inaa korno soo qaadid haweenkaas tuulada Ceel Jaale gudoomiyaha ururka haweenka degmada Marka Marwa Nuurto Xaaji Suufi iyo agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwa Faadima Cabdi Jeelle ayaa sidoo kale kulanka ka hadlay. horumar weyn laga gaaray tababar badan haweenka la siiyay tababarkii haweenka laga siiyay waa lagu guuleystay ilaa hadda ajantiyaasha waa laga hadlaa ajantiyaashaas oo sidii haweenka kaalintooda ay u qaadan lahaayeen ay u heli lahaayeen xuquuqda ka maqan 30% xuquuqdoodii haweenka inay helaan way waxyaabihii oo laga qabto Marko inay helaan tababarada ay helaan macnaha ii sheeg hadii ay noqoto wax walba oo haweenka ku saabsan inay helaan way waxa mas'uul ka ah tuulooyinkaas mas'uulka aan ka nahay ma haystaan qalab ku shaqeystaan ma haystaan tababaro oo loo geeyo gooni ah oo waxaan haweenkan lagu saaciid la dhahay ma jirto anaga waxaan rabnaa barakacaan in la istaajiyo dawladda koonfur galbeed dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa barakacaan gobolka in laga joojiyo waxa loo istaajin karaa in dadkii wax la siiyo abaarahan la soo cirib tiro shaqo abuur la sameeyo inta badan caruurta waxa u shaqeeya maamooyin dhibaatada ugu weyn oo jirta waxay tahay shaqo la'aan waxa si dheer tuulooyinka oo abaar ay ka jirto dhowr dalag oo la beeranin xagaa deer oo la leeyahay roob injirin beeriyo aan la beeranin dhibaatada ugu weyn oo jirta ay tahay oo anaga deegaankeena heesto tan kale waxay tahay shaqo la'aan magaalada Marka shaqo ma ka jirto abaartaas oo tuulooyinka saameys anagana waa in saameys waxay noo saameys tuulo wixii ka soo baxaa macna magaalada ay ku xiran tahay tuulo magaalo isku xirnaa ahayn tuulooyinkii waxa la waayay roob wabiga biyo la'aan dalago aan bixin anaga abaartii waana saameys. Ugu dambeyn kulanka ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Hoose Maryan Wiilow ayaa waxa ay haweenka degmada Marka ay kula dardaarantay inay muujiyaan wadajir iyo midnimo. haweenka degmada iyo gudoomiyaasha ka socda tuulooyinka Faadimo oo wasaaradda haweenka noo qaabilsan iyo idinkoo hablii gobta ahaaya oo reer Marka iyo deegaanada kale ka imaaday horta run waaye in oo ani hooyo isoo korisay waxaan malaynayaa hooyooyinka dhan ilmahooda iyaga korsaday kaalinta ugu muhiimsan gurigana hooyo gasho wadankeena dhan waa burburay waa la isdagaalay dhib badan dhacay dhibku lama soo koobi karo markii la isdagaalay raggii waxay wada aadeen midka dagaalka qaybka galay midkii dhintay iyo midkii guriga shaqlaan buul noqdo fariistay noqdeen dadka dhexda xirtay oo ilmahooda isku ceshtay oo ilmaha korsaday oo wax walba ay qaban karaan suubiyaan maamooyinkeena way wax walba tabartooda waxba ma yaha karaan gudoomiyaashii degmooyinka oo Shabeellaha Hoose dhana inta la soo keenay hatta Nuurto email noo hadal because ana waajibiga saaranta inaa idin hadlo waa idin hadlay kulligiina waxaan ira gudoomiyaashiina waa qaldantihiin waxa idin ka rabaa waa aad horta u soo bisaan gabdhaha maxaa loo xaqiraa gudoomiyihiina ugu fiican gudoomiye waafo gudoomiyaasha marka la sheego waafo inta anika arko soo gabdhaha qiray ma arkin waa iska yarta inta bog seminar la keeno oo konton qof la dhahay in oo dadka dhan la wada gaarsi way adag tahay dhaliilo uu leeyahay uu yeelan karaa dadka tabasho way leeyihiin
wax walbo yimaadaan magaaladan qaybtiina leedihiin haddii idinkugu yaraatin ana idin doodayo haddii yaraatin aniga idin doodayo gudoomiye gobolka noo joog ana gudoomiye gobolka wuxuu ku fiican yahay haddii ani qayliyo hala aamusi maxay qaylinaysaa marin uu leeyahay hala aamusiyo marka gudoomiye najaxna aad uu noo garab istaagay qof walba sidiisa lagu sheegay mar rabiyo in dadka dhan wax tabadaan oo dhaliil soobiyaan gudoomiyaha gobolka xagga u saariin gabdhaha dhulka kama yaalan gudoomiye waafowna halala shaqeeyo wixii la soo ark telefoon hala diro amniga halala shaqeeyo magaalada inay amni ahaato qurux badnaato idinka iyo anaga kulligeen anana idinkugu faanaynaa idinkana nabada idin tahay ilmihiin inay iskool aadaan oo maxaa la yiraahdaa idinkana shaqaystaan oo shaqeyshaan